wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland Xasan Maxamed Cali Gaafadhi iyo wafdi hogaaminayo oo ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa kormeer ku tagay cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood waxaana wasiirka halkaasi ku soo dhaweeyay agaasimaha cisbitaalka Laascaanood iyo sidoo wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Sool iyo mas'uuliyiin kale. wasiirka ayaa kormeeray qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay cisbitaalka magaalada Laascaanood guud ahaantii waxaana qaybaha wasiirku kormeeray kamid ahaa qaybaha xaaladda degdega ah, qaybta shaybaarka, qaybta bukaan socodka, qaybta ciyaalka iyo qaybo kale oo ay ka howlgalayeen dhakhaatiir caalami ah oo ay howlgelisay wasaaradda horumarinta caafimaadku iyo sidoo kale qaybaha kale ee uu ka kooban yahay cisbitaalka Laascaanood. waxaana wasiirku uu ka howlgeliyay cisbitaalka Laascaanood dhakhtar caalami ah oo waqti xaadirkan aad loogu baahnaa. wasiirku waxa uu indheeyay xaaladda bukaanka iyo sida uu u shaqeeyay cisbitaalka Laascaanood iyadoona uu halkaasi warbixin kaga dhageystay agaasimaha cisbitaalka Laascaanood Dr. Axmed Maxamed Xasan oo sheegay inuu cisbitaalku xilligan marayo halkii ugu fiicnayd shaqadana ay sii dardargelin doonaan. sidoo wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Sool Dr. Maxamed Xaati Khalifa ayaa dhankiisa ka warbixiyay sida ay u shaqeyso wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Sool oo shaqo weyn bulshada u haysa. wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Jamhuuriyadda Somaliland Xasan Maxamed Cali Gaafadhi ayaa ka warbixiyay kormeerkan uu ku sameeyay cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood sidoo kalena waxa uu sheegay inuu ka howlgeliyay dhakhaatiir casri ah. guud magaalada Laascaanood kormeer baan ku maraynaa waxaan uga kulannay dhakhtarka sanka iyo dhagaha iyo cunaha wadaan soo dhaafnay haddana waxaan ula joognaa Dr. Raxiim Qani oo ayaan dhaweyto aan heshiis la galnay oo Suuriya uga yeernay waxa weeyaan qalliinka guud qalliimo kala duwan ayuu samayn karaa waxaan jecel lahay waxaa ka mid ah taroomada ka mid ah waxaa ka mid ah waxlaale wixii qalliinaha caloosha leh qabsina leh maxaa heerniyada leh urdilaaca leh waxlaale wixii loo baahdo ayuu qabanayaa. waxaa wasaaradda horumarinta caafimaadka ayaa la gashay heshiiska la gashay lacagtana wasaaradda ayaa bixinaysa. waxay ka mid tahay tallaabooyinka aan kor ugu qaadayno isku filnaanshaha isbitaallada. waxaa dhammaan ka howlgala gaabo oo hadda uu soo socdo dhakhtarkii qalliinku maahaane isbitaallada inta kale oo dhan waxaa ka howlgala dad ajaanib ah oo intii dadka muwaadiniinta ahi ay buuxin kari weyday aan ugu talagalay inay buuxiyaan mustaqbalkana dadkuna waxna ka bartaan dadka muwaadiniinta ah ee shahaadadaha takhasuskaa soo sameynayana ay ku simaan intay howlaha ay kala wareegi doonaan. marka insha allahu tacaala waxaan jecelahay rajaynaynaa inuu Dr. Cabdikariim inuu wax weyn kusoo kordhiyo adeeg bixinta isbitaalka Laascaanood kaas oo dhul ballaaran uu u yahay isbitaalka. Liibaan Qaran, warbaahinta qaranka Laascaanood.